jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020 waxa maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 258 2020 eedeysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim ina Xaliime Maxamed Saciid konton iyo 32 jir ah kuna eedeysnaa qodobada 241 363 366 367 375 376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo kiiskiisa maxkamaddu u soo fadhiisatay shan fadhi dacwadeed xukunka maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xatooyo xoolo dadweyne maadaama uu kootadiisa gaarka ah lagu shubay lacag dhan 202,000 oo dollar isla markaasna uusan wax difaac ah u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan 105,907 dollar sidoo kalena uu lunsaday lacag dhan 32,000 oo dollar oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka ah kaga qaatay kareynta baabuurkiisa khaaska ah waxay kaloo maxkamaddu ku heshay qodobada 363 366 waxayna ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 2,366 dollar sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan 137,907 dollar xukunkan waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020 waa kiiska nambarkiisu yahay 247 2020 uu eedeysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi ina xirsiyo warsame rooble afartan iyo 6 jir ah ahna mulkiilaha shirkadda Maamuus General Contracting and Service iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekh Doon qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne 251 ku danaysi xafiis iyo 280 waxaana ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 88 milyan 725,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 3,549 dollar sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan 58,505 dollar xukunkan waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanaha damaanadii uu ku joogay dhammaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu jideeyay kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248 2020 eedeysana ka kala yihiin kow Aweys Xasan Cumar ina Xaliime Muuday Nuur 62 jir ah kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 lala akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan
ina saara xabiib axmed oo 26 jir ah ahaana maamulaha shirkadda alxabiib business center kuna eedeysan qodobka 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanaha koowaad Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 251 ku danaysa xafiis dawladeed waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183 eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183 dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku suman muddada uu sharcigu jideeyay maxkamaddu halka inoogu joogto maxkamadduna inoo xiranto billaah